السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta qaaliga. Halkani waa channelkeenu Fana Technology. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mid ka mid ah koorsooyinkii aad soo codsateen ee Google Docs. Google Docs waa application ka mid ah applicationada ay noo diyaarisay shirkadda Google, kaas oo aynu kaga hadli doono dhammaan qaybihiisa kala duwan videogan. Haddaba Google Docs waxa soo furan kartaa dhowrkan hab aynu ugu horreyn isla wadaagno. Goorma waxa dhexgeli doontaa Google Drive ayaa dhexgeli doontaa. Kabacdi haddii aynu imika halkan click siino, halkan waynu ka soo furan karnaa oo waa kuwan Google Sheet, Google Slide iyo Google Forms oo aynu casharkii hore kaga hadalnay. Halkan waad ka furan kartaa. Sidoo kale haddii aad new tiraadid waxaad ka furan kartaa qaybtan ayaad kala soo bixi kartaa. Ka ugu horreyn haddaynu soo furano Google Docs, ugu horreyn waxa kuu soo bixi doona platformkan ama daaqadan ayaa kuu soo bixi doonta. Daaqadani waxay u qaybsan tahay dhowr qaybood. Dhowrkan qaybood, qaybtan sare waa menu-ga weeyaan ama waa qaybta menu-ga ay ku jiraan fileski kala duwanaa, editkii, insertkii ay waxyaalihii ka faraha badnaa laga soo gelin doono, iyo qaybtan oo lagu talagalay editingka ama farta aad halkan ku qortid inaad ku edit garaysid. Haddaba ugu horreyn waxaaynu qaban doonaa shaqada koobaad aynu ka bilaabi doonaa inaynu documentigeena aynu magac u bixino. Documentiga haddaad doonaysid inaad magac u bixisid halkan ayaad uga bixin kartaa. sidoo kale waxaad uga bixin kartaa fileska intaad tagtid ayaad waxaad leedahay rename, kabacdi halkaas ayaad uga bixin kartaa. kabacdi waxaynu ku xigsiin doonaa inaynu folder ku dhex ridno sheetkeenan ama waraaqdeenan. folderkana halkan ayaad kaga dhex ridi doontaa, waxaad leedahay move, kabacdi waxaad dooran doontaa folderkii aad ku dhex ridi lahayd. tusaale ahaan kan oo kale ayaan wax ku dhex qortaa, kaas ayaa move leeyahay. marka qaybtan ayuu iga tusinayaa in la ii soo geliyey ama folderkii la ii geliyey waa kaa. sidoo kale waxaynu isla arki doonaa ama qaybtan yare importiga weeyaan. importigu waxay kugu soo hormarinaysaa documentigaagii ayay kaaga soo hormarinaysaa documentiyadii kale ee kuu kaydsanaa. ka star haddaynu imika niraahno documentigan waxaa laynoo soo dhigi doonaa Google Drive markaynu joogno, weliba qaybteeni folderkeena markaynu sii dhex joogno waxaa laynoo soo dhigi doonaa halka ugu horeysa ayaa laynoo soo gelin doonaa. sidoo kale waxaynu ku xigsiin doonaa inaynu sameyno qoraal ayaynu soo gashan doonaa. kabacdi waxaynu isla arki doonaa dhammaan qaybahan kala duwan. waxaynu soo gashanay qoraalkan yar ayaynu soo gashanay. qoraalkan ayaynu ku sameyn doonaa editing. ugu horreyn markaad qoraalka aad editing ku sameynaysay waad highlight garaysanaysaa, kabacdi waxaad ku sameyn doontaa an editing kasta oo aad u baahan tahay. ugu horreyn waxaynu ka bilaabi doonaa inaynu farta bedelno. farta markaad bedelaysa halkaas ayaad ka bedeli doontaa. waxaad ka dhigan doontaa farta aad rabtid ayaad ka dhigan doontaa. tusaale ahaan Times ayaan ka dhignay, Times New Roman ayaan ka dhignay, ama farta aad jeclaatid ayaad adu ka dhigan doontaa. sidoo kale haddii aad sizekeeda wax ka bedelaysid qaybtan ayaad ka helaysaa. tusaale ahaan 14 ayaan farteena ka dhignay ama 12 ayaynu deyn doonaa. marka waa sizeka farta ayaad qaybtan ka bedeli doontaa. sidoo kale calaamadahaas waad adeegsan doontaa adoo hadba dhimaya, sidoo kale hadba kor u qaadaya fartaada. sidoo kale haddii aad doonayso bool inaad ka dhigtid, tusaale ahaan hadduu ciwaan oo kale yahay bool ayaad taaban doontaa. italic waa markaad fartaada jeedinaysid. sidoo kale colorka markaad rabtid inaad ka bedeshid fartaada halkan ayaad colorka ka bedeli doontaa. sidoo kale waxaynu isla arki doonaa qaybtani waxay kuu qabanaysaa. tusaale ahaan waxaynu qornay qoraal kale
qoraal caadiya oo aan fartan ahayn ayaynu qornay. tusaale ahaan qoraal caadiya oo far kale ah ayaynu qornay. marka waxaad samayn doontaa, waxaad highlight garaysan doontaa fartaadii ku edit garaysneed, kabacdi waxaad taaban doontaa paint format, kadib waxaad calaamadin doontaa qaybtan aad rabtid inaad bedesho. markaa way isku ekaan doonaan amaba same ayay noqon doonaan. sidoo kale qaybtani waa undo iyo redo, oo waxaad rabtay shaqadii aad qabatay ayaa dib uga noqonaysaa amaba aad hore uga noqonaysaa. markaa waa redo iyo undo. sidoo kale qaybtan waxay kuu muujinaysaa printigii ayay kuu muujinaysaa, oo markaad rabtid inaad qoraalkaaga soo daabactid waxaa leedahay print. qaybtan kale waxaad ku arki kartaa zoom inaad soo tiraahdid waraaqdaada. tusaale ahaan iminka haddaynu niraahno 90, waraaqdaynu dib ayaa loo dhigay. sidoo kale haddaynu kasii yareynaba waraaqdaynu hadba way sii durkasa. markaa waa zoomta weeyaan. markaa qaybahan kale haddii aynu iyagana isla eegno, halkan waxaad ku arki doontaa fartaada hadba dhinaca aad dhigi doontid, ma centerka ayaa dhigi doontaa mise xaggaas ayaad kasoo jeedin doontaa. markaa waa qaybihii fartaada ama lane spaceka weeyaan. sidoo kale waxaynu halkan ku arki doonaa amaba qaybtani waa qaybta fartaada aad kaga samayn kartid inaad kala durkisid si loo aqriyo fartaadu ay noqoto far fiican oo la aqrin karo. tusaale ahaan 1.5 kaasoo kale ayaa badanka la adeegsadaa. kaas haddaynu ku dhufano wakaa farteeni waxay noqotay far caadi loo aqrin karo ama fiican. marka intan haddaynu soo koobno, intani waa editingkii aad guud ahaan aada hore ugu adeegsan jirteen wordka caadiga. wordka caadiga programkani waxba kagama duwana, kaliya hadii wuxuu kaga duwan yahay inuu online yahay. sidoo kale inaad kasoo geli kartid meesha aad doontid. tusaale ahaan documentigeenan waxa inoo dhex yaalaa gmailkeena, kabacdi waxaynu kasoo geli karnaa hadba meesha aynu rabno ama computerka aynu rabno ayaynu kasoo geli karnaa. haddaba waxaynu isla arki doonaa qaybahan kala duwan inaynu kasoo qaadano meelaha ugu muhiimsan. ugu horeyn waxaynu isla arki doonaa fileska. waxaad kasoo gelin doontaa halkani waa meeshii aad kasoo gelin doontid dukumentiyadaada kala duwan aad kasoo furanaysid weeyaan. openna waa iska garanaysaan, waa halka aad kasoo furan kartid dukumenti hore kuugu jiray. qaybtan waad kala soo degi kartaa dokumentigaagii, pdf ayaad kula soo degi kartaa. sidoo kale word ahaan caadi ayaad kula soo degi kartaa. sidoo kale qaybtanna waa halka laga geliyo folderka laga geliyo oo aynu halkaa kusoo aragnay. qaybtan iyo qaybtani waa same weeyaan. waxaad kaloo ku arki doontaa qaybtan language kala duwan ah, oo language kala duwan hadday carabi tahay halkan ayaad ka dooran kartaa oo documentigaaga aada uga bedeli kartaa. sidoo kale waa page setupka oo qaybaha pagekaagu noqon doono. tusaale ahaan pagekaagu ma wuxuu noqon doonaa mid jiifa oo landscape mise mid taagan ayuu noqon doonaa. markaa halkan ayaad ka go-aamin doontaa. sidoo kale qaybahani waa printing weeyaan. waa inaad printingkaaga intaana daabicin aad sii eegtid iyo inaad caadi aada u printing garaysid. editka haddaynu isla aragno waxaynu ka arki doonaa qaybahan amaba qaybihii aynu ku arkaynay qaybtan editing ayuun baynu ku arki doonaa. tusaale ahaan undo iyo redo waynu soo aragnay. sidoo kale haddii aad fartaada rabtid inaad cut ku samaysid amaba aad ku samaysid, qaybtan ayaad adeegsan doontaa. haddii aad rabtid inaad fartaada delete garaysid waa kan. sidoo kale haddii aad rabtid inaad fartaada aad select garaysid dhammaan halkan ayaad taaban doontaa. markaa qaybahani waa editka weeyaan. viewda waxaa ugu muhiimsan oo aynu ku arki doonaa waxaa la dhaho rulerka.
waa mastarada halkan kaaga muuqata. Iminka haddii aynu tigta saarno mastaradan yar ayaa kuu soo bixi doonta. Mastaradani waxay ku cabiraysaa page-kaaga inuu saxan yahay ayay ku cabiraysaa. Sidoo kale waxaad arki doontaa qaybtan show question ayaa la dhahaa toolbar. Show question ama new question waa qaybtan weeyaan taas aad ka soo gelin kartid equationada kala duwan. sidoo kale full screen ayaa ugu muhiimsan oo ah inaad documentigaaga screen-ka oo dhan aad full kaga dhigtid. marka qaybahaasina waa view-ga ayaynu ku arki doonaa. qaybtan image-ka waxaan filayaa inay tahay qaybta ugu muhiimsan taas oo aad ku arki kartid siyaabaha waxaan oo dhan documentigaaga loo soo geliyo. tusaale ahaan haddaynu image doonayno inaynu imika soo gelino waxaad ku soo gelin kartaa inaad computerkaaga ka soo dooratid iyo inaad search garaysid oo aad google-ka aad ka baadhid. tusaale ahaan haddaynu rabno inaynu google-ka ka baadhno halkan ayaynu ku qoraynaa magaca sawirka saxan guri oo kale ayaan ku qoray. kadib waxaad dooran doontaa sawirkii sidaas ayaa lagugu soo gelin doonaa. waa kan sawirkii sidan oo kale ayaa lagugu soo gelin doonaa. markaa documentigaagi wuxuu noqonayaa documenti dhammaan waxa aad rabtay oo dhan aad ka helaysid. waxaynu kaloo isla arki doonaa sida loo soo geliyo table qaybtan ayaynu kasoo furan doonaa. kabacdi waxaynu cayimi doonaa inta aynu u baahannahay. waxaynu cayimi doonaa inta aynu u baahannahay inta column aynu u baahannahay. tusaale waxaan u baahannahay 4 ama 3 iyo 3 kale. kabacdi qaybtan ayaa lagu soo furi doonaa. ka horeyn haddaynu rabno inaynu wax ku qorno waxaan ku qoranaa name id sidaas oo kale markaad table-kaaga aad xog aad ugu qortid waad highlight garaysan kartaa. fartiisa halkan ayaad ka bedeli kartaa saan far yar oo kusoo bixi kartaa. saas kale ayaad u hagaajin kartaa ama waxaad siin doontaa double click. kabacdi waxaad tegi doontaa qaybtan property-geeda table property ayaa tegi doontaa. kabacdi halkan waxaad ku arki doontaa tables ama style tables ayaad ka dooran kartaa. sidoo kale color-kii oo kale halkan baad kasoo furan kartaa. color-ka oo kale halkan baad ka siin kartaa table-kaagii. haddaad doonaysid inaad soo xoojid sidan oo kale ayaa dhihi kartaa. markaa qaybtana waa table-ka iyo siyaabaha loo soo geliyo ayuunbaad ku arki kartaa. sidoo kale waxaad soo gelin doontaa chart ayaad gelin kartaa. equationskoo kale dhammaan wax walba oo aad u baahantid inaad documentigaaga aad soo gelisid waxaad ka soo gelin doontaa qaybtan insertiga. watermark iyo kale waa kan. markaa inagu imika waynu iska dhaafi doonaa. dhammaan waxaad rabtid inaad ka soo gelisid documentigaaga waxaad ka soo gelin doontaa qaybtan la dhaho insert. waxaynu kaloo isla arki doonaa qaybtan format waxaynu ka arki doonaa dhammaan waxyaabihii aynu farteena kusoo hagaajinay markii hore. tusaale ahaan qaybta textiga oo kale dhammaan bold italic iyo wixii aad kusoo hagaajisay oo dhan ayaad halkan ka heli kartaa.
sidoo kale paragraph style-kaagu sida uu noqon doono, align-kaaga ama fartaada halka ay tegayso, dhammaan waa qaybahan oo dhan, qaybtan oo dhan ayaad ka heli doontaa waxa la dhaho format. waxaynu ugu dambaysiin doonaa qodobka toolska waxaynu ka arki doonaa qodobo muhiim ah, taas ay ka mid tahay translate document, inaad documentigaaga aad turjuntid oo aad luqad kale aad ku turjuntid. sidoo kale explore-ku waa marka aad rabtid inaad soo qaadatid waxa la dhaho document kale amaba qoraal kale ayaad rabtaa inaad Google ka soo qaadatid, waxaad taaban doontaa qaybtan explore-ka ayaa tegi doontaa. kabacdi halkan waxaad gelin doontaa tusaale ahaan qoraal ku saabsan waxa aad rabtid ayaad halkan ka search gareyn doontaa. kabacdi waxaad ka soo qaadan doontaa qoraalkii. tusaale ahaan qoraalkan ayaaba u baahanahay inaan documentigayga aan soo geliyo, sidan ayaan leeyahay. kabacdi halkan ayaan keesan karaa oo kaas qoraalka. tusaale ahaan markaad rabtid inaan qoraalkan lagugu qabsan oo kale oo ha u samaysid reference ama halka ka soo qaaday waxaad taaban doontaa calaamadaas yar. kabacdi waxaa lagu sheegi doonaa ama qaybtan hoose ayaa lagaaga sheegi doonaa oo lagu cadeyn doonaa qoraalkan meesha aad ka soo qaadatay. ka waa reference oo kale markaad buug aad qori, sidoo kale qoraalada aad soo qaadatid reference oo kale ayaad sidan oo kale ugu soo dari doontaa. tusaale ahaan haddaad team ku wada shaqeynaysaan oo kale oo aad rabtid inaad comment aad ka bixiso documentiga uu soo qoray saaxiibka, waxaad samayn doontaa qaybtan ayaad comment kaga dari doontaa. tusaale ahaan wixii khalad ayaad u sheegi doontaa, waxaad dhihi doontaa wax ka bedelo kale, wax ka bedel documentigan waxbaa ka yar khaldan oo kale ayaad dhihi kartaa, comment ayaad ka bixin kartaa. sidoo kale soo jeedin waad samayn kartaa oo sida uu ka dhigayo documentiga ama waa inta khaldan oo kale soo jeedin ayaad ku samayn kartaa adoo halkaa taabanaya. soo jeedin oo kale ayaad ku samayn kartaa. sidoo kale waxaad cabiri kartaa ama waa documentiga aad ku cabiri kartaa sida uu yahay sticker oo kale ayaad ku cabiri kartaa ama emotion ayaad u adeegsan kartaa. qaybahaas oo dhan sidaas ayaad u isticmaali doontaan hadduu alla idmo. waxaan filayaa inaynu wax badan aynu ka faa'iidnay course-kan aynu kaga hadlaynay Google Docs, aynu soo wadno qaybo kale ay ka mid yihiin Google Slide iyo Google Sheet. haddaba haddii aad channel-kan aad wax badan aad ka faa'iiday, fadlan noo subscribe garee, asxaabtaadana la wadaag. markasta waxaan igu diyaarnahay inaynu inii soo gudbino technology-ga iyo weliba qaybaha dhiirigelintana aynu dhowaan kusoo kordhin doono channel-ka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.